assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaaleel mar walbo joogtaan soo dhowaada waxaan ka bilaabaynaa amaba aan ku guda jirnayba atomic structure qaab dhismeedku atomku noqon kara ayaan kusoo guda jirnay jabtarka afraad ee chemistry form 1 ayaan kusoo guda jirnay insha allahu intaan muuqaalka gudaha u gelin fadlan muuqaalka like noo saara si ay dhiirigelin nooga noqoto insha allah waxaan ka bilaabi doonaa isotopes ayaan ka bilaabi doonaa isotopes waxa waaye marka aan ka hadlayno waxaan hore soo qaadanay atomic structure-ka qaybihii kala duwanaa ee atomic structure-ka ayaan soo qaadanay waxaan ka soo hadalnay taariikhda atomic structure oo soo maray ayaan ka soo hadalnay qaybaha loo qaybiyo atomic structure ayaan soo qaadanay oo aan kala qaybinay proton neutron electron waxaan kaloo soo sheegnay atomic number-ka iyo atomic mass-ka iyo soo kale qaababka iyo waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin ayaan sheegnay atomic mass-ka in uu yahay ayaan sheegnay proton inuu ka yimaaday atomic mass-ka labada shay ee bu'da ku jirto oo protonka iyo neutronka inuu ka yimaaday ayaan soo sheegnay waxaan kaloo sheegnay protonka iyo electronka iyo neutronka protonka electronka iyo atomic number waa isku mid marka aan ka hadlaynay tiradooda oo waxaan kusoo koobnay qaacido ah b equal waxay la mid tahay z equal waxay la mid tahay e ayaan dhahnay e na waxay u taagan tahay electron z na waxay u taagan tahay atomic number b na waxay u taagan tahay proton saddexdaas ay tiradoo isku mid ay noqdaan laakiin protonka electronka waxaan sheegnay inay ku kala duwan yihiin xagga shaqada waxay ku kala duwan yihiin charge ay ku kala duwan yihiin protonka electronka wuxuu shaqeeyaa positive charge halka electronkan uu wato negative charge uu wato waxyaabaha kaloo aan sheegnay protonka electronka ay ku kala duwan yihiin protonku ma dhaqdhaqaaqaan during the chemical reaction laakiin markii lagu guda jiro during chemical reactionka electronska movement ay sameeyaan oo dhaqdhaqaaq ay sameeyaan ayaan sheegnay waxaan ugu dambeyntii soo qaadanay protonka neutronka qaabka loo xisaabiyo oo asigana aan neutronka waxaa lagu helaa atomic weight oo laga jaray z ama b laga jaray ayaan ku sheegnay atomic weightkaasna inuu ka yimaaday nucleonis labada bu'da ku jirto inuu ka yimaaday oo ah proton tirada protonka ee bu'da ku jirta oo lagu daray tirada neutronka oo bu'da ku jirta ayaa markaa uu ka yimaadaan sheegnay waxaan insha allahu caawa bilaabi doonaa haddii aan la idmo isotopes waxaa raahdaa atomic weightyada curyaashu inay kala duwanaadaan isotopes waxaa fahankeedu atomic weightyada curyaashu in ay kala duwanaadaan ayaa waxaa loo yaqaanaa isotopes weliba si kooban haddaan u qeexno isotope waxaa loo yaqaanaa waa atomic numberka curyaashu ama proton numberka curyaashu inuu isku mid noqdo laakiin ay ku kala duwanaadaan curyaashu atomic masska inuu ku kala duwanaadaan atomic masska curyaashaas ay ku kala duwan yihiin ayaa waxaa loo yaqaanaa isotopes ama atomic weight dheh ama atomic mass dheh waa isku macno labada eray adeegso midkaa rabtid marka isotopes waxaan leenahay atomic weightyada curyaashu ay ku kala duwan yihiin ayaa waxaa loo yaqaanaa isotopes laakiin waxay iskaga midka noqonayaan curyihii wuxuu iskaga midka noqonayaa atomic numberkiisii ayuu iskaga midka noqonayaa laakiin wuxuu ku kala duwanaanayaa atomic masski tusaale hadda markaan fiirino halkan oo kale sidaa arkaysaanba walaalayaal carbonkan oo kale hadda fiiri waxaa halkan taa 12 14 halkan fiiri same atomic number buugu noo sharaxa same atomic numberku waa isku mid laakiin waxay ku kala duwan yihiin curyihii waa isla curyihii waa laakiin waxay ku kala duwanaadeen atomic mask ay ku kala duwanaadeen oo 12 ah iyo 14 ah macanow hadday ku kala duwanaadaan ka waran atomic numberka hadday hal curyo atomic numberkiisa maba kala duwanaa karaba haddiiba curyo atomic numberkiisa uu meel yar iska bedelo curyihii oo dhan isbedel hadda tusaale carbon tiradiisan 6 ah haddii aan ka dhigno 7 haddaan ka dhigno carbon ma ahee curyo cusubaa imaado loo yaqaan hydrogen loo yaqaana marka curyuhu iskama bedelaba atomic numberka atomic numberaa la bedel macnaheedu waxay ka dhigan tahay curyahoo dhana isbedel waa macnaheedu atomic numberka curyaha kala duwan macnaheedu waxay ka dhigan tahay curyihi oo dhana isbedel waa macnaheedu laakiin atomic massku waa kala duwanaa karaa waxay isweydiin kartaa macanow maxaa sabab u ah atomic masska curyuhu inuu kala duwanaado waxaa sabab u ah atomic masska curyaha inuu kala duwanaado neutronka curyaha oo kala duwan ayaa sabab u ah neutronada curyaasha oo kala duwan ayaa waxay sabab u noqotay in atomic weightka curyaashu ay kala duwanaadaan
waxaana aad iyo aad u sharaxay oo sababtaasi ogaaday qaacidadana keenay father of neutron James Chadwick sanadkii 1932 waa kana hadda markaan fiirino walaalayaal halkan hadda carbon oo kale markaan fiirino carbon oo kale 12 meel ku dhameeyna 14 say ku dhacday tirada protonka mar walba waxa waay 6 waa isma bedelin oo atomic number kama protonka zade ama proton waa isku mid laakiin neutronkeeda koowaad neutronkeeda hadda neutronka waa neutronkeeda labaad waa neutron waxay leedahay 11 neutronkeeda koowaad waa 11 neutronkeeda labaadna waa 12 waa neutronkeeda koowaad waxa ah neutronkeeda koowaad wuxuu yahay 5 neutronkeeda labaadna waxa waa 6 marka neutronkeeda labaad isku dar marka meeqa marka atom weight waxa lagu heli jiray proton lagu daray atom weight waxa lagu heli jiray proton lagu dar neutron protonka oo 6 ah oo lagu dar neutronka oo 6 ah waxay noqonaysaa 12 ay noqonaysaa haye sidoo kale marka inta aan soo qaadan soo kale haddana soo qaadan neutronkeeda saddexaad neutronkeeda saddexaad waxa maanta neutron 3geeda waa 7 hay isku dar marka neutronkeeda 7 haysataa isku dar protonkan waa 6 atom weight marka waxa waa protonka oo 6 ah oo lagu dar neutronka oo 7 ah may neutronka 8 waa naha neutronka afraad waa waliba neutronkan waxa waa neutronka afraad ee carbon waa 8 neutronkeeda afraad oo 8 iyo 6 isku dar meeqa 14 waa sababta ay u qaadatay 14 atom weight waa sababta uu noqday 14 marka 14 ka qaabkaas lagu soo saar marka aan ka hadlayn guud ahaan tirada marka inay saas oo kala duwanaadaan waxaad ka arkaysaa neutronada oo kala duwan waayo neutronkeeda koowaad ayaa ah 5 ah neutronkeeda labaad waa 6 neutronkeeda saddexaad waa 7 neutronkeeda afraadna waxa weeyaan waa 8 weeyaan 4 neutron oo kala duwan ay leedahay neutronadaasi kala duwan waxay sabab u noqdeen atom weight-ka curyaashu inuu kala duwanaado sabab u noqdeen waayo boogan galna marka inaad wax badan fahanteen cashirka hadda idinku fahansan aad gali karna ayaan filayaa aan isa socono marka insha Allah walaalayaal aan aad iyo aad iskula socono insha Allah waayahay aan bilaawno insha Allah wuxuu leeyahay markaan fiirino have you ever seen activity hal mar aan dulmarno have you ever seen weligaa ma aragtay twins walaalo with the same age da isku mid leh but like different weight culeyskooda kala duwan yahay leeyahay waayahay give usoo qaado example tusaalooyin qaar like sida this then present tan oo kale aan kuma dali karno their similarities waxyaabaha iskaga mid ka yihiin and differences waxyaabaha ku kala duwan of the glass ee nuucyada wuxuu leeyahay markaa fiiriso ardayow weligaa ma aragtay qof mataan ah laba qof oo mataanan ah mataanan waxay ku yihiin macnaha way isku labadii qof way isku eg yihiin ma la kala yaqaano laakiin waxay ku kala duunaa karaan labada qof xajmiga ku kala duunaa karaan muuqaalka markaa fiirso jirkooda maqaarka markaa fiirso waa iska shabahan laakiin waxay ku kala duunaa karaan waxay ku kala duunaa karaan weight-ka ku kala duunaa karaan Soma waa sidaas camal isotopkana marka saa darteeda aan fiirino isotopeska maxaa raada isotopes are elements waa kana si fiican fahan qeexideeda waa tan walaal aad iyo aad u fahan are elements waa curyaal that was have the same atomic number isku mid ay leeyihiin same atomic number aad iyo aad halkaan fiiri same atomic number but laakiin different waxay ku kala duwan yihiin mass number waxay ku kala duwan isotopka mass number kay ku kala duwan yihiin laakiin waxay iska mid ka yihiin isotopes marka waxa leenahay waa elements weeyaan that have less same atomic number isku mid ay leeyihiin but laakiin different waxay ku kala duwan yihiin mass number kay ku kala duwan yihiin isotopeska can also be defined as waxa lagu qeexi karaa waa elements oo curyaal with the same number of proton ko isku mid si atomic number iyo proton number no isku mid soo ma dhihin hadda markaan sharaxay z oo atomic number ah waxa la mid ah proton aad warkaas mar walba qalbiga ku jiro ardayo waaya marka saadarteed marka fiirino isotopeska can also be defined as waxa lagu qeexi karaa elements curyaal with same number of proton leh but like different number of neutrons waxay ku kala duwan number of neutrons ku kala duwan waana sababta aan sheegay oo sharaxay waa neutronadaasi kala duwan ayaa waxay sabab u noqotay atom weight curyuhu inuu kala duwanaado example tusaale
isotope of carbon markaan firin halka waa kanaan fiiri carbon isotope markaan firino waxay ku kala duwan yihiin isotope waxa waa kala duwanaanshaha atomic weight-ka curiyaha waa hal curiye culayskiisa inuu kala duwanaado waa isotope faankeeda Soomaaliga saas waa yahay marka fiiri 12 14 maxaa sabab ah neutronadii oo kala duwan atomic weight-ka inuu kala duwan neutronadii oo kala duwan sabab ah haye the isotope ina faantana fila buuga shafaan oo sharaxay haye the isotope of an element have the same chemical properties astaanta gudaha ee falgalka markaan fiirino astaanta gudaha ee falgalka hoose chemical property waa falgalka hoose waa isku mid waa number of proton waa iskaga mid and electrons kan waa iskaga mid laakiin waxay ku kala duwan but differ waxay ku kala duwan in number of neutron mass of number and a physical property astaanta muuqata waxaa kamid ah tan oo kale kamid ah carbonka waa muuqda astaantiisa muuqato markaan fiirino subscriptigiisa waxaa yaala same number laakiin superscriptigiisu different waa kala duwan yahay sama waxa ka muuqda waa physical property waa yahay haye an isotope is named waa la magacaabaa after the element curiyaha isotope waxa lagu sheegaa curiyaha uu la socdaa la raaciyaa waayo curiyuhu maadaama uu leeyahay waxay dhaheen marka chemistrisku curiyuhu maadaama ay uu leeyahay amaba uu yeelan karo curiyihii culaysyo kala duwan curiyihii maadaama uu leeyahay waa atomic numberka uu isbedbedelayn constant uu yahay curiyaha atomic numberkiisu hala raaciyo si loo ogaado curiyahaas atomic weight-ka uu wato si loogu calaamadeeyo hala raaciyo marka la qoraayo curiyaasha marka la qoraayo hala raaciyo amaba laga sheekeynayo goorma waa waliba marka laga sheekeynayo nuclear reaction curiyaashu falgalka buuda marka ay sameynayaan oo kale ma hadda sidan chemistry form 4 aan ku aragno oo kale waa aragteen sama radium 208 arkaysi marka waa hal raaci Allah marka atom weight maadaama uu kala duwan yahay atom weight markaas curiyaha uu wata hal raaciyo waayo way kala duwan yahay atom numberka marka si loo cadeeyo atom weight uu wato curiyaha marka hal raaci Allah waa kana fiiri an isotope is named wala magacaaba after the element curiyaha and the mass number in the mass number of its atoms atomidisa for example sale carbon 12 oo kale is an isotope of a carbon waaye markaan firino mar carbon maxaa raaci carbon 12 kaas waxa carbon waxay leedahay culays kala duwan laakiin waxa lagu dhahay carbon ta wadata waa culayska 12 aad wadata waa carbon ta lagu sii cadeey waxay tahay soo jeedid isotope kaas wadata of a carbon with a mass number of waxa marka 12 kaas waa mass numberkeeda waa markaa firino waayahay specific isotope waa maxay in la cayimo isotope in la cayimo is represented waa maxay cayimidiisa waxa lagu matalaa into two ways laba qaabood nuclear symbol notation buuda oo calaamadeeda marka la qorayo lagu qoro in the notation qaabka kood waxa buuda marka la calaamadeyna oo la qoro waa kana aan firino in this notation qoraalkan kan we write waan qoraynaa the mass number ayaan qoraynaa waxaan u qoraynaa as superscript waa maxay qoraal sar ahaan aan qoraynaa mass numberka waxa ka dhiganaynaa superscript maxaa qoraal sar ahaan ka dhiganaynaa mass numberka waayahay anna soo kale atomic number oo z u taa calaamadiisa loo qaatana as subscript waa maxay qoraal hoosaada u qaadanaynaa haye waayahay in front of the element waxaana dhigaynaa curiyaha hortiisa ayaan sumada curiyaha hortiisa in front of the element symbol sumada curiyaha hortiisa ayaan dhigaynaa balakida atomic number is often inta ugu badan omitted waa laga tagaa since maadaama id asig waa looga tagayo it is constant waa in the same isotope waa maxay curiyihii same isotope culeysyada iyagoo kala duwan oo curiyuhu same isotope waxaa loo jeedaa curiyihii asagoo culeysyo kala duwan wala isla curiyihii oo wata culeysyo kala duwan wata same waa curiyuhu isku hal curiyo waa oo mid oo wata isotope culeysyo kala duwan wata ayaa wuxuu yeelan karaa atomic numberkiisu constant waa mar walba isma bedelaay maadaama atomic numberku isma bedelaynin sababtaas marka looga tagaya waa kan tusaalaha hadda fiiri marka fiirin tusaalaha hadda fiiri x u qaad inuu curiyihi yahay marka maxaa waaye atomic weight subscript waa superscript waa koraa loo qoray atomic weight atomic weight z atomic number waa mujeedido x kan waxay u taagan tahay curiyihi chemical symbol of the element curiyaha markaasi any element walba x any element walba ma kara n marka waa number of neutrons
n haddaa maqashidno ardayo waa number of neutrons waa mass number waxaa lagu helaa z oo lagu daray neutron atom weight waxaa lagu helaa z oo lagu daray neutron haddana waa taan idin tusayba hadda fiir right qorda isotope of chlorine taas oo atom numberkeedu 17 uu yahay mass numberkeedan uu yahay 35 iyo 37 maxaan leenahay markaa fiirino waa qaabkan book soo kaaga shaqeeyo waa waxba inaan qorigma baano qaabkan la bas fiiri qaabka la 35 17 mar walba inta lagu qoray atom numberka subscript waa atom mass kana superscript waa saa artaan waayahay halkan soo fiiri qamida labaad waxa loo yaqaanaa Haven notation waa maxay in la sameeyo jiitin in la sameeyo waa Haven notation waxa qoraal jiitin in la sameeyo in this notation qoraalkan we write one qorina the element curiyuhu followed by Haven waxa raacinayna jiitina raacinayna goorma waa marka atom and it is mass number kiis markuu wata for example tusaale sodium 23 oo kale ayaa kamid ah marka sodium jiitin 23 waayo maxaa way qaabka labaad loo qori kara waa macnaha waayahay waa ka soconaynaa waxaa jirta two main types of isotope laba nooc ayaa ugu waaweyn ayaa loo qaybiyaa qaybihiisu waxay kaliin labadaas nooc stable isotope xasilan isotope waxa loo yaqaanaa waa isotopes waay with stable nucleus buu xasilan leh buu aan falgal sameynaynin leh kan maxaa asigana unstable isotope are also known as waxa loo yaqaan radioactive isotope matatax ku jiro radioactive kaafale maxaa waa shucaac bixiye maxaa waa iftiin bixiye erey kaah iyo fale ayuu ku imaaday kaah oo ah iftiinki iyo fale oo ficil ah saas oo ku imaaday waa qaabka marka known as waxa loo yaqaan radioactive isotope they have waxay yeelanayaan unstable nucleus ay yeelanayaan with spontaneous disintegrate si iskeeda u kala jabaysaa waaye inta waxay noqonaysaa particles qaybo an energy tamar ayaa markaas ka imaanayso sida buudaasi ay noqonaysana waxa aad iyo aad aan ugu sharaxaynaa insha Allah aan wadnaaba hadda aan ku gudo dirnaaba chemistry-ga form 4 ka gaar ahaan chapter nuclear chemistry ayaa aad iyo aad u sharaxayo waayahay halkaas ayaan geynaynaa insha Allah waxa inoo joogto relative atomic mass ha inoo joogto intaas ayaan geynaynaa waa maasantiin walaalayaal